Salaamu calaykum caruurey. Maanta waa Jimce. Xabiibkeena rasuulkeena aynu ku salino. Allaahumma salli wa sallim calaa nabiyina Maxamed. عليه الصلاة والسلام. Baraaba caruurey, maashaa Allah. Caruurey, jimcihii hore siirada rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaynu bilownay. Waxay inoo joogtay rasuulka sallallahu calayhi wasallam isagoo ilmo yara inuu ka tegay faamilkiisii. Halkii uu tegay ayaynu maanta ogaanaynaa. Caruurey, carabtii berigii hore waxay lahaayeen caado ama dhaqan. Marka ilmo yar u dhasho waxaa la geyn jiray miyiga. Caruurey, miyigu waa dhul ballaadhan oo hawadiisu ay tahay fresh, yacni hawo nadiif ah ay tahay. Ilmaha markuu halkaa ku korana wuxuu noqon jiray ilmo caafimaadkiisu fiican yahay. Dadkii hore markay ilmahooga miyiga geeyaan si fiican ayuu ugu kori jiray ilmahoodu. Afkana wuu u baran jiray. Caafimaad ahaan iyo jir ahaanna wuxuu noqon jiray ilmo wanaagsan oo awood leh. Caruurey, miyiga waxaa ka iman jiray dumar. Waxay qaadan jireen caruuraha yaryar ee magaalada. Miyiga ayay la tegi jireen iyagoo naas nuujin jiray oo korin jiray oo hayn jiray ilaa intii faamilkii ilmaha yar dhalay ay u imanayaan oo ay ka haysanayaan. Dumarkaas iyaguna waxay faa'iidi jireen in lagu siiyo lacag ilmaha yaray hayaan ee ay korinayaan. Dumarkaasi markay magaalada yimaadaan waxay odhan jireen, yaa haysta ilmo yaroo cusub si aan u qaadano oonu u geyno miyiga, halkaana aanu ugu korino. Dadkuna kuwii caruuraha yarar dhalay waxay odhan jireen, haa, ilmo yar baan haysanaa oo cusub, qaada oo noo soo koriyo miyiga noo geeya. Waayo ilmihii yaraa miyiga dhaqankiibuu ku baranayaa, afkiibuu ku baranayaa, caafimaad ahaanna way u wanaagsan tahay. Hawada miyiguna waa hawo nadiif ah. Caruurey, dumarkii waxay u yimaadeen Aamina bintu Wahab, rasuulka sallallahu calayhi wasallam hooyadii. Waxay ku tiri, hooye waa kan ilmahaygii. Kadib waxay weydiiyeen dumarkii, meeye ilmaha yar aabihii, si uu noo siiyo lacagtii aanu ku hayn lahayn ilmaha. Aamina bintu Wahab, rasuulka sallallahu calayhi wasallam hooyadii, waxay dumarkii ku tiri, aabihii wuu dhintay, ilmaha yar aabihii wuu dhintay. Dumarkiina waxay yidhaahdeen, may, ma qaadanayno ilmaha yar markaa. Dumarkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam awowgii ayaa ku yidhi, anaa lacagtiina idin siinaya, anaa lacagta bixinaya. Dumarkii caruurey way diideen inay qaataan ilmihii yaraa, waana iska tegeen. Laakiin caruurey waxaa jirtay gabadh la yidhaahdo Xaliimo Sacdiya. Xaliimo Sacdiya iyaduna miyiga ayay ka timi. Magaalada ayay tagtay si ay ilmo yar u soo qaadato. Yada iyo ninkeedii iyo ilmo yaroo ay dhashay ayaa isla socday oo magaalada imi. Caruurey, Xaliimo Sacdiya waxay wadatay dameer. Dameerkeedu wuxuu ahaa mid aad u gaabiya. Dadkii hore oo dhan way ka hor dheereeyeen. Magaaladii ayay ka hortageen. Ilmihii way soo qaateen. Laakiin iyagu dameerkooda ayaa aad yar u socday. Way ka dambeeyeen dumarkii kale ee caruuraha qaatay. Sidoo kale Xaliimo Sacdiya waxay haysteen hal. Hashaana caanaha ayay ka lisan jireen. Laakiin caano aad u yar ayay ka heli jireen hasha. Xaliimo waxay raadinaysay ilmo yar oo ay qaadato si ay miyiga ula tagto ay u koriso. Laakiin Xaliimo caruurey ilmo way weyde, may helin wax caruur ah. Waayo dumarkii oo dhan ee ka soo hordheereeyey waxay qaateen ciyaaladii oo dhan. Laakiin waxa hadhay xabiibkeena Maxamed sallallahu calayhi wasallam isagoo yar oo beebiya. Isaga unbaa hadhay, caruurihii kaloo dhan waa la qaaday. Caruurey, Xaliimo waxay tiri, anigu waxaan qaadanayaa ilmaha yar ee aabihii dhintay. Waxay u tagtay xabiibkeena rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam hooyadii
iyo awowgii waxay ku tiri aniga ayaa qaadanaya ilmaha yar. caruurey markii ay xaliimo qaadatay beebigii yaraa waa xabiibkeenna rasuulkeenna salaallahu calayhi wasalame, waxay aragtay waxyaalo fara badan oo cajiib ah. hasheedii ay caanaha ka lisan jireen, caanaha yar ay ka heli jireen, caano fara badan ayay yeelatay. caanihii buu alle u barakeeyey oo u badiyey. dameerkii aad yar u soconayay ee gaabinayay wuxuu noqday dameer awood leh oo si fiican u socda oo dheeraynaya. caruurey dumarkii kale ee caruuraha soo qaatay way yaabeen, waxay idhaahdeen dameerkii siduu u dheereeyey, dameerku soo kii gaabin jiray awood ayuu yeeshay. caruurey ilaahay wuu barakeeyey rasuulkeenna salaallahu calayhi wasalam wax walba oo agtiisa ah. khayr fara badan iyo barako fara badan ayaa la socota rasuulkeenna salaallahu calayhi wasalam. gabadhii maskiinada ahayd ee xaliimo markay qaadatay nimco fara badan ayay heshay. caruurey xaliimo sacdiya iyo ninkeedii iyo ilmaheedii yaraa iyagoo rasuulka salaallahu calayhi wasalam wataa waxay ku noqdeen meeshii ay deganaayeen, miigii ay deganaayeen. magaciisana waxaa la odhanayay dayaar banii sacad. caruurey meeshii ay deganaayeen xaliimo iyo faamilkeedu waxay ahayd dhul bannaan, wax beer ahna kumay oolin. laakiin markii ay rasuulka salaallahu calayhi wasalam la timi gurigeedii meeshii ay deganeed, markay la timi rasuulka salaallahu calayhi wasalam roob ayaa soo da-ay. meeshii ay deganeed waxay noqotay wada cagaar, dhul wada doog ah oo barwaaqo ah ayay noqotay. dhulkiina wuu qurux batay. caruurey xaliimo waxay tidhi markii aan maxamed soo qaatay ee uuna soo raacay wax weliba way wanaagsanaadeen. ilmahan yar barako iyo khayr ayaa xagga alle kala socota. wax walba oo agagaarkiisa ah waxay noqonayaan wax qurux badan. xaliimo waxay ahayd caruurey mid aad iyo aad ugu faraxsan rasuulka salaallahu calayhi wasalam. caruurey xabiibkeenna rasuulkeenna salaallahu calayhi wasalam wuu weynaaday, 2 sannadood ayuu gaadhay. wuxuu noqday ilmo jidhkiisu fiican yahay oo awood leh, caruuraha da'diisana ka awood badan. waxa la gaadhay xilligii loo calin lahaa maxamed rasuulkeenna salaallahu calayhi wasalam hooyadii. laakiin xaliimo aad ayay u jecleed rasuulkeenna salaallahu calayhi wasalam, waxay rabtay inuu wakhti kaloo dheer la sii joogo. caruurey xaliimo waxay u tagtay rasuulkeenna salaallahu calayhi wasalam hooyadii, waxay ku tiri maxamed yare ma ii dayn kartaa waxoogaa kale ha ila sii joogo, waayo miigu waa dhul wanaagsan oo hawadiisuna ay fiican tahay. magaalada haddaynu ku soo calinno waa intaasu ku xanuunsadaa ee ii yaradaa ha ila jooge. xaliimona waxay ahayd mid mar walba rasuulkeenna salaallahu calayhi wasalam hooyadii uuga sheekaynaysa wanaagga miiga. rasuulka salaallahu calayhi wasalam hooyadiina way u ogolaatay xaliimo inay mar labaad ka haysato rasuulka salaallahu calayhi wasalam oo uu la soo joogo waxoogaa kale. xaliimona way soo kaxaysatay rasuulka salaallahu calayhi wasalam, waxay la timi meeshii ay deganeed ee diyaar banii sacad. caruurey qisadeena dambe ayaynu ku qaadan doonaa inshaa allah wixii dhici doonaa. salaamu calaykum caruurey.